hoggaanka waqtigiisu dhammaaday ee sifada sharci darrada ah ku fadhiya madaxtooyada qaranka ayaa hortaagan in shacabka Muqdisho ay dhigaan dibadbax ay kaga soo horjeedaan nidaamka kalitalisnimada ee farmaajo uu doonayo inuu dalka ku qabsado. Khubarada sida dhow ula socda xaaladda dalka ayaa tibaaxaya in culayska ka jira qabashada dibadbaxa uu ka dhigan yahay in hoggaanka dalka aanu rabin qabsoomidda doorasho cadaalad ah oo ka madax bannaan musuq iyo eex. walaa xoogan ayaa sidoo kale ka imaanaya in doorashada aqalka hoose ay ku soo idlaato waqtigii loo qorsheeyay ee ahaa 25 bisha soo aadan ee Febraayo, taasoo mar kale caqabad ku noqon doonta howlaha doorashooyinka ee dalka. Khubarada ayaa sheegay in maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug ay ku fashilmi doonaan doorashada ka dhici doonta deegaanadooda sababo ku aadan xiriirka ay la leeyihiin hoggaanka fashilmay ee sida sharci darrada ku jooga filla Soomaaliya, taasoo ka hor istaagaya in ay qabtaan doorashada furan. Doorashada dalka oo uu mar labaad boob hareeyo ayay khubaradu waxa ay sheegayaan inay keeni karto qalalaase iyo xasilooni darro, taasoo dhaawici doonta nidaamkii qori isku dhiibka ahaa iyo hanaanka dawlad wanaaga, waana mid dalka ku hagi doonta waddo aan qurxoonayn. dhinaca kalena taliya ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA General Cabdalla ayaa waxa uu sheegay in farmaajo uusan waxba u reebanin sidii uu ku burburin lahaa dawladnimada Soomaaliya. wuxuu sheegay in farmaajo uu indhatiray jaceylka uu u qabo Itoobiya oo ka hormariya danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed, isagoo taasi u sameynaya farxad gelinta iyo sidoo kale raali gelinta ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. farmaajo Soomaaliya waxba uma reeban jaceylka uu qabo Itoobiya, wax walba waa ka indhatiray, ayuu yiri General Cabdalla oo ah dusiyaha sirta NISA. General Cabdalla ayaa waxa uu sheegay in shacabka u cadaatay qorshihii fashilmay ee madaxweyne hore farmaajo ku siiyay 4 dekedood dawladda Itoobiya iyo qatarta ee mustaqbalka keeni karto isku daygaasi. wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamed ayaa dhawaan sheegay in markii uu xafiiska joogay farmaajo diiday in diyaarad military oo Masar leedahay in lagu soo qaado deeq dawo ah oo jaamacadda Carabta ugu deeqday Soomaaliya, isagoo ku raali gelinaya Itoobiya oo uu kala dhaxeeyo Masar khilaaf ku qotoma biyo xireenka wabiga Niil. farmaajo Abiy Ahmed iyo Afwerki waxay 2018 kala saxiixdeen heshiis iskaashi dhanka amniga iyo kuwa kale oo la xiriira sidii awoodda xoog ugu haysan lahaayeen, isla markaana ay ku caawin lahaayeen haddii midkood khatar soo wajahdo iyagoo ciidan isku diraya. taasi waxay run noqotay dagaalkii Tigray oo farmaajo iyo Afwerki ay ciidamo u direen Abiy Ahmed si ay uga gacan siiyaan burburinta jabhadda TPLF oo khatar ku ahayd xukuumadda Addis Ababa.